السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن داوديا meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada war waxaan idiin haynay caalamka waa habeenimo khamiis ah bishuna 8 ay tahay wararka caawa aan idiin hayno waxa ugu dooroon wararka Mareykanka iyo kuwa Soomaalida ku soo dhowaada waxaan wararka idiin haynay daawadayaal dowladda Mareykanka ayaa ka fiirsanaysa qorshe ay lacag ugu diri karto dadka Greenland si ay uga go'aan Denmark uguna biiraan Mareykanka. Arrintan ayaa dhalisay dood siyaasadeed iyo walaac caalami ah oo ku saabsan madax-bannaanida dhulka Greenland. Dhanka kale, weli waxaan ku guda jirnaa Mareykanka. Gudoomiyaha gobolka New York ayaa ku dhawaaqay maalgelin ballaaran oo lagu hormarinayo daryeelka carruurta, gaar ahaan carruurta da'doodu ka yar tahay 5 sano. Qoysaska dakhligoodu hooseeyo in lagu taageero. Sidoo kale, Mareykanka waa cusub oo la dagaalanka khiyaanada ah. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaciyay in la abuuri doono wax cusub oo ka tirsan waaxda cadaaladda, taasoo si gaar ah diiradda u saari doonta dacwadaha la xidhiidha khiyaamada iyo musuqmaasuqa. Sidoo kale, qaramada midoobay Mareykanka qoraal kale oo ka soo baxay qaramada midoobay ayaa muujinaya murugo iyo walaac ku aadan go'aanka Mareykanka ee ah inuu ka baxo qaar ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay, taasoo UN-ku sheegay in ay saameyn ku yeelan karto iskaashiga caalamiga ah. Sidoo kale, qoraal ka soo baxay qaramada midoobay ayaa sheegaya in go'aano siyaasadeed oo dhowaan la gaadhay ay saameyn ku yeesheen boqortooyada UK iyo dalal kale oo caalamka ah, iyadoo laga digay cawaaqib xumo ka dhalan karta xasilooni darrada siyaasadeed. Wararka Soomaaliya. Xiriirka Mareykanka iyo Soomaaliya. Xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Soomaaliya ayaa hoos u dhacay kadib markii Washington ay joojisay caawimadii lacageed ay siin jirtay Soomaaliya. Talaabadan ayaa la sheegay inay ka dhalatay muran la xidhiidha burburinta bakhaar ay maalgeliyeen hay'adda caalamiga ah ee UN. Dhanka kale, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay bilowday baadhitaan rasmi ah kadib markii la ogaaday in Andalus al-Zubaydiya, hogaamiyaha kooxda Sprite Yaman, uu ka soo galay Soomaaliya kadib ka dhoofay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee Muqdisho isagoo u sii jeeda Abu Dhabi. Dowladda waxay ku guda jirtaa baadhitaan xooggan. Dhanka kale, waxaa aad loogu soo dhoweeyey maanta Somaliland xildhibaan Dube oo ka noqday fikirkiisii hore Soomaali weyn laguna soo dhoweeyey Somaliland. Walaal daawada waa kan. Iyadu waa 193 wadan. waxayna diiday markii hore 192 dal bayna ogolaaday. dalka ina ogolaaday waa ina ogaataan ee dawladda Israa'iil abaal idinku leeyahay. abaal inuu idinku leeyahay waa ina ogaataan. abaal inuu idinku leeyahay waa ina ogaataan. wuxuu idinka soo saaray oo inaga soo saaray oo Somaliland ka soo saaray. afli baax buu ka soo saaray. god 12 baax buu ka soo saaray aqoonsigaas. gabaygii gabay xadii wuxuu ahaa bawdada markii aan ka jabay iyo boqonka taagiisa ninkii buurta dheeriga la baxay habeenkiiba way biran lahaa bahalkii cawlaaye ninkii buurta dheeriga la baxay beerka ka ogsooni waa ognahay waa abaal gudaynaa qalbigaanu ku haynaynaa kuwa meelaha wax ka soo xarxariiqana waxaanu leenahay maanta anagu buur baanu ku tiirsanay libaaxu waraabayaashu way ku ciyaan laakiin waxa ma yeelaan Israa'iil iyo Mareykanku waa libaaxiyo cidna waxa ma yeeli karto. intaasi waa mahad celin 26 Disembarna waa inay noo noqotaa maalin maalmaha kale inooga duwan oo maaha jiilkeenanune jiilasha dambana ay ogaadaan maalintaasi qiimaha ay lahayd godkii ka soo baxay xaaladdu iyo aqoonsigu qiimuhu inoo lahaa. aqoonsiga waa ogtii meydkeenni baa la cashuuraa oo waxaanu ka dagaalanay 9 meyd baan anigu rikoorkooda hayaa oo badna la celiyay Yurub lagu celiyay
badhna aad sababo lagu aasay sababtoo ah meydku markuu on arrival yahay lacag lagama qaado laakiin markuu baasaboor sito ee uu India ka imanayo ama Yurub ka imanayo waxa laga rabaa waa qof oo baasaboorka waxa laga rabaa daawadayaal war waxaan idinka haynay caalamka iyo Soomaalidu waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh subscribe tanada hayloobina iyo share iyo comment please waa idin salaamayna waa cusubnay bye